Sheekada wiil iyo libaax waxaa sameeyey Kartoniya. Maalin maalmaha ka mid ah, tuulo yar oo ku taal buuro hoostood waxaa ku noolaa wiil yar oo la odhan jiray Sahal. Sahal wuxuu ahaa ilmo jecel inuu wax barto, balse had iyo jeer wuu cabsan jiray markuu maqlo cod xooggan, markuu arko mugdi, ama markuu arko qof weyn oo xanaaqsan. Aabbihiis ayaa mar kasta ku yidhaahda, wiilkaygiiyow, qofka geesiga ahi ma aha mid dagaalama, waa mid aan ka baqan nolosha. Laakiin Sahal weli ma fahmin ereyadaas. Waa dambe tuulada waxaa ku dhacay abaar. Ceelkii waa engegay, dadka oo dhanna waxay ka hadleen in ceel cusub laga heli karo dhinaca buurta dheer ee laga cabsado, buur dabataag. Cidina ma rabin inay tagto, sababtoo ah waxaa la sheegay inuu ku nool yahay libaax weyn oo dadka cuna. Sahal ayaa maqlay hadalkaas, wuxuuna go'aansaday in mar uu riyadiisa rumeeyo oo uu noqdo geesi, wuxuuna aaday buurtii. Markuu gaaray buurta, Sahal wuxuu maqlay roar. Cod weyn oo libaax, laakiin markuu u dhowaaday, wuxuu arkay libaax weyn oo dhaawac ah oo geed hoostiis jiifa. Lugtiisa ayaa dhaawac ka muuqdaa, dhiigna wuu ka socdaa. Sahal halkii uu ka carari lahaa, wuu istaagay, wuxuu xasuustay hadalkii aabbihiis, geesigu waa midka aan ka baqan nolosha. Wuxuu qaaday caleemo qoyan oo daawo u ah dhaawaca, wuxuuna bilaabay inuu libaaxa nadiifiyo. Libaaxii wuu fiiriyey, wuxuuna si deggan u yidhi, ma jiraan dad ii naxariista. Adiguna maxaad ii caawinaysaa? Sahal ayaa yidhi, geesigu ma maahan mid dagaalama ee waa mid naxariista. Maalmo kadib, libaaxii wuu bogsaday. Wuxuu u sheegay Sahal meel ceel biyo leh oo hoos ugu qarsoon godka buurta. Sahal iyo libaaxii ayaa halkaas ka heleen biyo nadiif ah oo macaan. Markuu ku soo laabtay tuuladii, Sahal wuxuu kaxeeyey dadkii, wuxuuna tusay meesha biyaha yaallaan. Dadkii oo dhan way la yaabeen, waxayna ugu yeereen Sahal geesi. Libaaxii wuxuu ka baxay buurta, wuxuuna ka tegey isagoo faraxsan. Sahal wuxuu bartay in geesinimadu aysan ahayn dagaal, balse ay tahay in la sameeyo waxa saxda ah xitaa marka la cabsi qabo. Tan iyo maalintaas, tuuladii waxay noqotay meel biyo leh, nabad leh, oo dadku isku kalsoon yihiin. Carruurta waxay ku heesi jireen Sahal iyo libaax, saaxiibo geesiyaal ah. Fariinta sheekada geesinimadu waa in aad samayso waxa saxda ah xitaa marka aad cabsi dareento. Waxaa diyaariyey sheekadan Kartoniya. Caruuray sabskrayb dhaha channelka Kartoniya.